wuxuu qalinkiisii ku dilay macallin Soomaaliyeed welina waa uu ka qoomameeyaa inkasta uu ka tagay shaqadii. wuxuu ahaa wiil dhalinyaro u shaqeeyo sirdoonka Soomaaliya. goobtu waa magaalada Muqdisho. waxaa lagu amray in uu xog ka keeno macallin ka shaqeeya mid ka mid ah iskuulada magaalada Muqdisho. wuxuu dabagal ku sameeyay macallinkii. ma uusan arkin macallinkii oo wax qaldan samaynayo. mar walba wuxuu arkayay macallinkii oo arday wax barayo, macallinkii oo masaajidka galayo, macallinkii oo wanaag samaynayo. ma uusan arkin wax shaki geliyo. wuxuu diyaariyay report si uu ugu gudbiyo madaxii ka sarreeyay. wuxuu qoray report wuxuuna yiri kumaanan arag macallinkan wax shaki geliyo. laakiin nasiib xumo reportkii waa lagu soo celiyay waxaana lagu yiri waa inaad reportkaada ku soo gabagabaysaa shakigii waa la xaqiijiyay. jumlada shakigii waa la xaqiijiyay isagu ma uusan u fahmaynin in ay sabab u noqon doonto dilka mucallimka. wuxuu hadalkiisii ku soo gabagabeeyay tuhunkii waa la xaqiijiyay. maalintii xigtay waxaa la soo qabtay oo la xiray macallinkii. habeenkiiba macallinkii waa la dilay waxaana la yiri wuxuu ku dhintay isku day baxsi oo wuxuu doonayay in uu xabsiga ka baxsado. laakiin wiilka wuxuu ku sugnaa goob aanan u fogeyn xabsiga. wuxuu maqlayay qaylida mucallimka laakiin waxba kama uusan qaban karin. waxaa loo sheegay in macallinkii la dilay isaga oo isku dayayo isku day baxsi. wuxuu soo aaday goobtii macallinkii uu ka shaqaynayay. waxay ahayd goobtu goob aan ka fogeyn wadada uu u maro si maalinla ah. wuxuu arkay gabadhii macallinkii oo ardayda ay weydiinayeen aaway aabbaha, iyaduna ay iska ilmeynaysa oo ay leedahay aabbahay waa la xiray. waxba kama uusan qaban karin. qalbiga ayuu ka gubtay waa uuna isaga tagay. laakiin nasiib xumo wuxuu yaqiinsaday in waa la xaqiijiyay tuhunkii ay sabab u noqotay dilka mucallimka Soomaaliyeed. wuxuu go'aansaday shaqada inuu isaga tago. shaqadina waa uu ka tagay. kadib markii uu shaqada ka tagay wuxuu habeen waliba iyo maalin waliba ka qoomameeyaa qormadiisii ahayd waa la xaqiijiyay tuhunkii. halkan waxaan idinku soo gudbin doonaa qisooyinka cajiibka anigoo aanan qofna magaciisa xusi doonin.